munaasabad ballaadhan oo lagu soo bandhigay dhaqamada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Bonn ee dalka Jarmalka. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen wadamo ka tirsan shanta qaaradood ee adduunka ayaa waxaa ka mid ahayd Somaliland oo lagu marti qaaday isla markaana ku lahayd goob ay ku soo bandhigaan dhaqankooda iyo qadiyadda madaxbannaanidooda. Gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka Cabdifataax Ali Daawud, gudoomiyaha ictiraaf raadinta Somaliland ee dalka Germany Maxamed Xuseen Dhacsi iyo xubno ka mid ah jaaliyadda Somaliland ayaa halkaasi ugu sharaxay dadweynihii ka soo qayb galay Somaliland halka ay adduunyada kaga taalo iyo waxyaabaha ay caan ku tahay. xubnihii halkaasi uga qayb galay Somaliland ayaa uga warbixiyay warbaahinta qaranka Somaliland waxyaabaha ay ku soo bandhigeen munaasabadaasi. waxaanu maanta halkan kaga qayb galaynaa xaflad weyn oo ka dhacaysa wadankan Jarmalka magaalada Bonn. xafladaas oo ay kaga soo qayb galeen ilaa 120 wadan oo dunida caalamka inkastoo maanta wadanku rooban yahay oo roobkii saaka bilaabay salaadii subax ilaa hadda uu da'ayo haddana roobkaasi nagama baashin xafladeedii ee waanu wadnaa. waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa oo aanu iibinaynaa qarannimada Somaliland inay Somaliland tahay wadan madax bannaan. waxaa halkan ka soo qayb galay saaka subaxii hore madax badan oo wadanka Jarmalka ah ama ha ahaadaan xisbiyada mucaaridka ama ha ahaadaan kuwa talada hayaba. marka waxaanu halkan ku qaybinaynay waraaqo iyo flyer waxa la yiraahdo ka turjumaya qarannimada Somaliland inay wadanku madax bannaan yahay, Soomaaliya ka madax bannaan yahay. 18 sanadood Somaliland waxay qabsatay halka ay maanta marayno intii doorasho ee wadanka dhacday ee waliba si madax bannaan u dhacday. marka waxa weeyaan waa hawl aad iyo aad u muhiim ah. waxaan maanta ku soo bandhigaynaa waana markii labaad ee aan ku qayb galnay xaflad noocan oo kale ah. maanta waxaan joognaa magaalada Bonn ee wadanka Germany. waxaan joognaa xaflad lagu soo bandhigayo dhaqanada halkaasi oo aan ku soo bandhigno dhaqanka Somaliland, maabkeeda, qadiyadeeda iyo wixeeda dhamaanba. waan ka xunnahay roob weyn baa da'aya oo noo suurtagali waayay inaanu sameeyno hidiyo dhaqankii iyo waxyaabihii la midka ahaa ee dhaqanka qayb soo bandhigi lahayn. laakiin imika sharaxaadii wadanka iyo intaasaan ku jirnaa. waxaan aad ugu hambaleynayaa jaaliyadan reer Bonn ee magaalada ku qabatay hasha sida wanaagsan loo soo diga gashay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xafladan oo jaaliyado fara badan oo wadanka caalamka ay isugu yimaadeen waxaan ku soo bandhignay qadiyadda Somaliland. 6 subaxnimo roobkii da'ayay ayaa ilaa 3 maanta lagu da'aya uma aanan joojin namana damqayo waayo waxaanu doonaynaa inaanu iibino qadiyadda Somaliland aanu halkaa u taagannahay. waxaan wadanka Somaliland iyo dadka shacbiga Somalilandba aan u rajaynayaa wanaag iyo farxad iyo waxa aan himiladoodu ay tahay in ay insha Allah ay ka midho dhaliyaan oo ay ka midho gaaraan. waxaan ku rajaynahay in aanu mar walba iyo sanad walba aanu soo bandhigi doono xafladan oo kale. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan jaaliyadii reer Somaliland ee saaka nagala soo qayb gashay. maanta waxaa sharaf weyn oo ah haddaan nahay bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan magaaladan Bonn. runtii waxa maanta halkan lagu soo bandhigay waxa ay dhaqanka bulshada caalamka oo dhan baa runtii soo bandhigaysa dhaqamadooda. maxamed runtii agaasinkeeda lahaa oo runtii hawsha xil weyn iska saaray sidii dhaqankeena wanaagsan bulshada reer Somaliland ay leeyihiin caadadeennaba in goob caalami ah noocan oo kale ah runtii lagu soo bandhigaa reer Somaliland ma sharaf u tahay. maxamed runtii uu ku mahadsan yahay qofkii soo organize gareeyay runtii ahaa ummadaas oo dhan maanta runtii arkaysay macnaha dhaqankeena iyo ummadaynu nahay iyo calankeena arkayeen. runtii maayirkii magaalada joogay ururo kale caalami ah joogan arkayay. runtii waa tallaabo hore loo qaaday weeyaan. insha Allah bidda sanadada dambe maanta roob naxanimay insha Allah xorjeena tuka si ballaaran insha Allah bidda mustaqbal soo bandhigi doona Ilaahay ka dhigay insha Allah. Republik Somaliland, wir haben heute leider ein schlechtes Wetter, aber ja, wir stammen alle aus Somaliland. Wir wollten heute alle zeigen, dass wir aus Somaliland kommen. maanta waxaanu ka soo qayb galnay xafladda dhaqamada lagu soo bandhigo sanad walba. marka ma sha Allah jaaliyadu si buuxda ayay uga soo qayb qaadatay. sanadada dambena inaan ka sii fiicnaan doonaan insha Allah rajaynaynaa. maanta tijaabay naga ahayd laakiin insha Allah annagoo soo diyaar garaynay dhaqankii, hidiyo dhaqankii, cuntooyinkii, wax kasta aan ku soo bandhigi doono sanadada dambe haddii Ilaahay ka dhigo. waxaad moodaa shacabka Somaliland inay iminka ka gaabiyeen arrimihii jaaliyadaha iyo qurbo joogba ay ka gaabiyeen. marka waxaan leenahay hal la dardargeliyo arrimahaas oo aan laga caajisin. anaguba ka mid baanu nahay
laakiin insha allah sanadada dambe haddii ilaahayna gaadhsiiyo boodhkaanu ka jafi doonaa si buuxdana waan uga qaybgeli doonaa tanina waa mid ka jirta jarmalka oo dhan maalinta bandhiga dhaqamada marka cid kastoo jarmalka joogta oo reer somalilanna waxaanu leenahay qof waliba magaalada uu joogo iyo meesha ay degan yihiin in ay ka qayb galaan oo ay xoojiyaan si ay u muuqato somalilan wadajirka shacabka somalilan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا فردوس عبد الله يا عمر معناته وحنا كسر قيب قلي حفلة دي جمهورية الصومالي لان حفلة أساسية يا قروح بدن نوجود عضي دتك كسر قيب قلي الصومالي لان فرحة وجلسي يا بانوجو فرح سنة هاي نهلك وحنا كسر عميا دمان تدوينها الصومالي لان waxaan salaamayaa madaxweynaha Musabbixi waxaan salaamayaa madaxweynaha ku-xigeenka waxaan salaamayaa golaha guurtiga dhammaan dadweynaha Soomaaliland aad iyo aad baa u mahadsantihiin munaasabadan oo ahayd mid sanadkiiba mar la qabto ayaa wadamadii ka soo qayb galay ay ku soo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka ay wadamadoodu caanka ku yihiin Mustafa Cabdikariin Ali telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Bonn ee dalka Jarmalka Soomaaliland horumarto ستنشان ربنو عنانكي دولة نمو لبدا هلنكي لقاد برمود بيدوني داتاي صومالي لان هورو مرتو ستنشان ربنو عنانكي دولة نمو لبدا هلنكي لقاد برمود بيدوني داتاي وحاهر دلبو قمعا حرات كورتها بقى وحاهر دلبو قمعا حرات كورتها بقى ما كان هرتو من نمو كل صاري قايساتو عدالة نلغو هدي وحاهر دلبو قمعا حرات كورتها بقى وحاهر دلبو قمعا حرات كورتها بقى ما كان هرتو من نمو كل صاري قايساتو عدالة نلغو هدي هجابي وليا هدعين جيرو عروها هجابو